munaasabadan ay ka qayb galeen qaar ka mid ah wasiirada xukuumadda Soomaaliya xubno ka tirsan baarlamaanka taliyaha ciidanka booliska iyo ku-xigeenadiisa ayaa waxa ay ka dhacday xarunta jaamacadda ummadda oo ay dhawaan ay ka baxeen ciidamo ka mid ah kuwa Amisom gaar ahaan ciidanka Burundi oo waayihii dambe fariisimo ay u ahayd halkaasi iyadoona dhawaan markii ay ka baxeen ciidankaasi lagu wareejiyay wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya si dib loogu furo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed waxaana ammaankeeda la wareegay ciidanka booliska Soomaaliyeed taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Saraa'iil Guuto Cabdixakiin Daahir Siciid Saacid oo ka hadlay kulanka ayaa u mahadceliyay ciidamada booliska ee gacanta ku haya ammaanka goobta jaamacadda ay ku taalo waxaan leeyahay ciidamada amnigu runtii waxay guteen waajibaad aad u badan waxaan rajaynaynaa haddii xuquuqda iyo taageerada ay ummadooda helaan iyo mas'uuliyiintooda inta ay ka badan waa qaban karaan waana ballan qaadaynaa waddanka inta ka hartay inaan ka difaacno cadowga gudaha iyo dibaddaba gabagabadii kulanka wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo soo xiray ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay wado qorshe ay kula wareegayso goobaha ay dhawaan ka bixi doonaan ciidanka Amisom iyadoona ay u diyaar garoobeen ciidanka Soomaaliya qorshe waxaa jiro in ciidamada Amisom ee waddankan ka bixi doonaan ilaa 2020 ama 2021 ama 2021 ay ka bixi doonaan mar qorshe uu bilowday waa meeshii ugu horeysay taliyaha booliisku uu sheegay sidoo kale baarlamaanka qorshaan wadnaa in la wareegno ciidamada Soomaaliyeed sidoo kale istaadi Muqdisho waxaan rabnaa inaan la wareegno muddo gaaban haddii Allah uu daliiraado markaan la wareegno sida istaadi Muqdisho oo kale ama halkaan oo kale waxaan rabnaa sidii ahaan jirtay inuu soo celsho Ahmed Yusuf Suleyman Home Cable TV magaalada Muqdisho